بسم الله الرحمن الرحيم إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن دمان هرتا إن أمد الإسلام كائن ملولي بيضافها عالم كي كجوكتو إن سلام يا إن سلام كدب إن وحنا هاي وريق عبد الله الراجع قرلبا إن وحنا هاي إن قفل بناء إن سيدا وجدنا إن كيجا مقبا إن وحكوا على وجهيجا إن شلي إن حلي أن كوجد جري إن هو له الشقاء أيا إن أنا جو مل وحكوا بنا إن وحي صور إن أسكر أن كدب أسكرتي إن وحي اسكو دايين إن جعمها يلقلان أن وحي نجيبين عقبك أن وحكوا بنايي إن سيدا كاميرا ده markay kaamirada ay jibiyeen aan weydiiyay sababta ay kaamirada ay ku jibiyeen aniga gacmaha ay la galeen waxay ugu tumeen qorbaadkiisa kadib gacanta ay la galeen waa u jeedin waxa dhabanadeyda ka muuqdo markay gacanta ay la galeen saldhiga si xoog ay ugu wadeen ay kaxeeyeen markii aan saldhiga tagay oo aslaha cadaalad ka soo helaysa saldhiga oo aan loogu yeeray taliyaha saldhiga Maxamed Siyaad Cali Canjeex markuu yimid oo aan ku dhahay taliye in laba eedaan ciidan ba sidaan ii soo gashay wayna soo weerareen aan ku dhaho waxay sharciigana la horgeeyay Maxamed Siyaad Cali Canjeex waa ninka sida wajigayga u galay waxaan sugaaba waa sharciiga in aan ku kala baxno wuxuu sidaan wajigayga ugu galay markii aan u sheegay taliye Canjeex in meeshan ka sugayay inuu cadaalad ugu dhaqo dibkii gaaran oo ila qaybsado oo wuxuu ugu dhahay in waad xiran tahay marka xitaa adu xiritaan oo kaliya oo igu similahay xitaa in wajiga ahaan laheeday balse uu jiiday wuxuu geeyay meeshii gabdhaha lagu xireeyay saldhiga gaar ahaan qolkii gabdhaha lagu xireeyay markuu qolkii galiyeen tintayda iyo qoortayda isku qabtay kadib darbiga ayuu madaxa igu qaracay oo jeedaan foolkayga kadib cankan inta badan asiga wax iga gaarsiiyay kadib xitaa jirkayga inta badan dhaawac ku yaal waayo shintiisa dhaawac badan ay ugu yaalo ilaa haddana wax ii qabtan maanan arag inkastoo aan wali aan helin xaqayga ninkii sidaan ii galay wajigayga sidaan u galay oo askartii ay soo jirdishay iga darnaaybo oo wajiga garaafiga gaarsiiyay oo wali magaalada nabad uu ku joogo isla markaana uu howlihiisa shaqo u gudanayo anigoo ah gabar qof dumar aan ahay howsheeda aan ku guda jiro aan dambi gelin oo sidaan igu sameeyay ilaa haddana wax tilaabo sharci aan laga qaadin oo wali shaqadiisa uu haysto taas aadan ugu xumahay waxaan islahaa markii dhibkan uu ku gaaro waa lagu damqanayaa oo mas'uuliyiinta Hirshabelle dhaqso ugu soo jawaabin doonaan inkastoo ay dhaheen wax waa kula qabanayna waxaan ka codsanayaa maamulka Hirshabelle madaxdiisa taliyaha Hirshabelle booliska waxaan ka codsanayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan jawaab aan helo leegaga jawaabo ninkii dulmiyay Canjeex oo dhibkan inta badan i gaarsiiyay wax sidaan ii gal waa Canjeex hadii aan ka soo tago askarti waxaan isleeyahay askartana Canjeex baa kugu soo diro markaad u timiday uu ku xalin lahaay wuxuu ku dhilahay bal iqray iska raali noqoniga ka cishanayo waxaan ka codsanayaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre labada gole baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya dhamaan hay'adaha waxaan ka codsanayaa dhibkayga waad u jeedaan ninka sidaan ay galeen sharciga la geeyo wax waliba aniga ugu sameeyay aan sharciga aan ku kala baxno saasaan ka codsanayaa waxaan ahay gabar wariye ah ku nool magaalada Jowhar dhiban wajiga waa baasaboorka koowaad waad u jeedaan wajigayga sidoo shalahay iyo maanta sidoo ahay isma lahan xitaa ilaa feeraha waa laga haayo oo xalwan jiifan waayay marka dhamaan muslimiinta meel waliba ay joogtaan waxaan leeyahay oo dhibka ay la qaybsanayso waa mahadsantihiin sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhamaan intii shalay ka damqatay xanuunkayga ay waliba wariyaasha inkastoo wariyaasha qaar oo ku sugnaa magaalada Jowhar oo ii dooday oo isla xalay uu hanjabay taliye Canjeex uu ku yiri sababta dhibkeeda Facebook u soo saaraysaan waxay tahay idinkana wad ku jirtaan nin taliye sheeganayo oo dhibkan ii geystay ilaa haddana aan waxba aan laga qaban oo shaqadiisa ku guda jiro aniga aad baan uga xumahay meel waliba daafaha caalamka aad joogtaan waxaan idin leeyahay xaqayga la soo dhiciyo dawladda federaalka Soomaaliya maamulkeena sharafta leh Hirshabelle waxaan ka codsanayaa mar labaad mar saddexaad mar afaraad waxaan leeyahay mas'uuliyiinteeda sharafta leh waad ii jeedaan waa dhibanahay gabar Soomaaliyeed aan ahay gabar wadanka u dhalataan ahay gabar magaalada Jowhar ee caalamka Hirshabelle iyo caalamka oo idil Hirshabelle laga yaqaan ahay
ninka sidaan ii galay waa ninaan aqoon ii laho si fiican ii yaqaano xitaa doon aqoon ii lahaa lahayn xitaa wajibay ahaaleed balse aqoon buu leeyahay waxaan ka codsanayaa dhammaan Hirshabeelle madaxda Hirshabeelle xildhibaanada Hirshabeelle xoohay wasiirada Hirshabeelle waxaan sugayaa waxaan idinka sugaaba waa inaan helo cadaaladda hay'adaha u doodo in xuquuqul insaanka iyo waliba kuwa u doodo dumarka Soomaaliyeed in meel waliba ay joogaan waxaan leeyahay waa dhibanaha waa diijeedaan in oo sheeganayo in mas'uul in isla markaana ilaa hadda ku guda jiro howlihiisa oo wali diijeedaan inaad dhibanahay ba sidaan ii galay waxa idinka codsanayaa inaad xaqayga soo dhicisaan meel waliba daafaha caalamka aad ka joogtaan sharcigana la horgeeyo Maxamed Siyaad Cali Canjeex waa ninka sida wajigayga u galay waxaan sugaaba waa sharciga in aan ku kala baxno wuxuu sidaan wajigayga ugu galay